nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiis maalinka qiyaamaha dadka adduunyada soo maray kii ugu barwaaqo badnaa ayaa la keenay buu nabigu yiri kaasoo laakiin ahla naar oo naar loo sii wado hal mar kaliya ayaa la qaadi oo dadna naarta la galin waa laga soo qaban oo la weydiin oo lagu oran doonaa waligaa ya allah intaad adduunyada ku noolayd wax barwaaqo iyo nicmada ma ku soo martay may buu leeyahay ilaahay baan ku dhaartee baraare iyo barwaaqo haba yaraatee anigu maba arag buu leeyahay waa dadka adduunyada soo maray kii ugu barwaaqada badnaa ee ugu nicmada badnaa ayaa la keenayaa maalinka qiyaamaha laakiin isagoo ahlu naar ah hal mar kaliya oo naarta la geliyo laga soo celiyay ayuu nicmadii adduunka taalay oo dhan ku halmaamay waxaa kaloo lala iman buu nabigu dadka adduunyada soo maray kii ugu nolosha adkaaya ugu xaqiisa ugu imtixaanka badnaa ee adduunyada dusheeda dadka lagu imtixaamay kii ugu nolol liitay ugu nolol hooseeyay kaasa banka qiyaamada la keenay laakiin isagoo ahlal janna hal mar kaliya jannada la gelin oo laga soo celin oo la oran doona intaad adduunyada ku noolayd dhib iyo rafaad iyo mashaakil ma la kulantay hal mar intuu isaguna ilaahay ku dhaartay ayuu leeyahay maya ilaahay baa ku dhaartay wax dhibaato ma arag buu leeyahay anigu adduunyada nicmadeedii oo dhan kii la siiyay ee dadka adduunka soo maray ugu nicmad badnaa maadaama gaalnimo adduunyada uu ku noolaa oo gaalnimana ku dhintay hal mar kaliya oo naarta la tuso la geliyay ayuu nicmadii oo dhan ku halmaamay dadka adduunyada soo maray kii ugu nolosha adkaana oo islaamnimo iyo iimaan iyo tawxiid la dhintayna hal mar kaliya oo jannadii la tusay ama jannada intuu la dhex joojiyay laga soo celiyay ayuu mashaakilkii adduunka ku soo maro dhan ku halmaamay marka islaamnimada ilaahay baa bixiya ilaahay baa islaamnimada inoo qadaray waa inaan diinta islaamka aan ilaahay ugu mahadino weeyaan oon istiqaamo ku yeelana istiqaamo diintu waxay u baahan tahay in lagu sugnaado istiqaamadana quraanka ilaahay meelo fara badan baa ilaahay kaga hadlay oo nabigeena Muhammad calayhi salaatu wasalaam amar baa lagu siiyay la yiri fastaqim kama umirta waman taaba macaka adiga Muhammadow diinta ilaahay ku doortay islaamnimada ilaahay ku siiyay ee shaqana lagaaga dhigay ku toosnow baa nabiga lagu yiri oo ku toosnow oo ku qumanow adiga iyo cidii ku rumaysay ku raacdayba waxa laynaga rabaa diinta inaad ku sugnaataan oo istiqaamo ku yeelataan nabigeena calayhi salaatu wasalaam ninba u yimid oo yiri qul li fil islaam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka ya rasuul allah diinta islaamka qawl iga dheh oo meel iga taabo meeshaasoo adiga dabada cid dambana aanan weydiinin markaa buu nabigu yiri qul waxaa tiraahdaa aamantu billaahi ilaahay baan aaminay oo ilaahay baan rumeeyay kama huwa biasmaa'ihi wa sifaatihi jalla wa ala thumma istaqim daana ilaahay markaad rumaysid ee diinta islaamkana aad rumaysid ee diin u qaadatid ku toosnow oo ku sugnow baa lagu yiri laana adduunyadani waa daar dadka lagu imtixaamayo sida maalmuhu isku bedelayaan ayaa bini aadankan xaalad waxa la soo darsaayay kala nuucnuuca sida maalinka iyo habeenku isku daba socdaan ee jiilaalka iyo guguna isku daba socdaan ee abaarta iyo barwaaqaduna isku daba socdaan ee habeenka iyo maalmuhuna isku daba socdaan ayaa bini aadankan imtixaanka la soo darsaayana waa isdaba soconaya isaguna ma kala go'ayo بالكلية هل أي بني آدم كحالات كلية كودة جري كرين بشوح الله جاي وتضبط عشاه الرسول إن فرح سناتد تضبط الدحانة مرة ثانية وحكام مرقسية كل ما نض مرقوتي تضبط كل حكتين إن العافمال قبتد تضبط كدمرة وح الله جاي بينه حنون كقول دعاء حمد يلا فقرا على دعوه وحالات nolosha dhan baa caynkaas waxa laga yaabaa sanadkan inaad ahaatid sabool faqiira kal dambana waxa laga yaabaa inaad xoogaha jeebadaad ku haysatid adduunyo yar sanadkan waxa laga yaabaa inaad ahaatid nin dhalinyaro ah kal dambana waxa laga yaabaa inaad noqoto nin xaslay oo reer leh sanadkan waxa laga yaabaa inaad ahaatid nin caafimaad qabo boodayo ordaya kal dambana waxa laga yaabaa inay ku qoran tahay inaad jiifto sariirta dul taalo sanadkan waxa laga yaabaa inaad ahaato kuwa nool adduunka dusheeda dul tallaabsada kal dambana waxa laga yaabaa inay ku qoran tahay kuwa dhimanaya qabriga ku jira inaad ka mid noqoto
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بريتو لو واحد لك ولا سو درسا يا أديكو ما أجد ماشى قبرياكو نقولين أديكو متقانين إلهي وعليم وحمانت أدوية كذا عيان إسقى أقان أوله وخبير ويانو وحولي أدونك أنا كدعينا كسو صعدنا ككلي أوجي يقان وإلهي تبارك وتعالى بركات دارتن وين دوغاتا ودار الاختبار أرضي سكولك مركو سقال بلود ودكتو كلاسكا بيش السقالات وحو فديسانيا واختبار امتحانك محل لوغا قادايا وعلى كلا ساريا كي دداليي كي بانا ان ددالين من مركا او باسيا كي باسيا مركا كي دداليا تعليمته او سو جيدي نظامك مدرسه iyo iskuulka ilaalinaya waxbarashada ku dadaalayay imtixaanka markuu u soo fadhiista uu baasaya kii kale suuqa iska joogay ciyaarayayna kaasina uu ku dhacaya marka ardayga fariidka ee maaragtay wanaaga badan leh ee waxbarashada ku fiican ee mutqinka iyo ardayga baliidka marka halka lagu kala saaro imtixaanka adduunka dusheedana waxa imtixaanka ilaahay xaqiisa uu nooga keenaya wax kala maaha walayna kala reebaya marka aya iimaanka iyo islaamnimada iyo diinta ku sugnaanayo istiqaamo yeelanaya ayay se dabayluhu qaadayaan